السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنجل channel official like and subscribe kasi saar dhegeyso sheekadan quruxda badan aan ku hayo ka faa'iideyso wax ka baro waayaha adduunka waa caweyskii caawo iyo wacyigelintii bandhigii talada iyo waayaragnimada maxaad ka taqaan jacaylka muxuu yahay jacaylku waa furaha nolosha idgoonka raaxada nuurka la soco wax wanaagsanna ka beero daawada soo dhawow daawashadaada waa noo muhiim like and subscribe and share Anjal channel official waa xageena soo dhawaada muxuu yahay jacayl waa shakooyinkii noo socday taxanayaasha ahaa hadba dhinacayaan ka soo eegaynaa kana soo galaynaa daawada ma og tahay wiil ama gabar ma og tahay jacaylku inuu yahay nolol jacaylku inuu yahay qurux jawaagii bariyaba waxaa lagaa rabaa 24 hourskiiba inaad jacaylkaaga waraabisid haddii aadan waraabin sida cageedka qaybta soke caleemta baroonka ah waa caleen qalashay ee wuu qalalayaa noolee jacaylkaaga waraabi siduu u green u noqdo saas ayaa lagaaga baahan yahay waa Anjal channel official like and subscribe and share ku xageena jacaylku waa nolol waa murtaax waa kalsooni waa farxad waa caafimaad waa qurux waa horumar siyaabo badan baan uga soo hadalnay wuuna ku jiraa channelka ka faa'iideyso channelkan Anjal channel official free buu ku yahay lacag lagama qaadin lagumana oran waa lacage keen wax ka baro waxna ka faa'iideyso waxna kala soco okay daawade iyo daawadayaal walaalahay iyo gawiil iyo gabarba walaashay iyo walaalkay adeerkay iyo habreertay abtigay iyo eedaday wuxuu dad yahay waanahay soo dhawaada mar hore iyo mar labaadba soo dhawaada iyo mar dambaba mar kastaba jacaylku waa noloshuna waa qaali weeyaan noloshu waa muhiim inta aad joogtid inaad wax jeclaatid kow naftaada jeclaatid labo waaridkaa jeclaatid saddex reerkaaga ilmahaaga iyo aad jeclaatid xaaskaaga ama ninkaaga ma og tahay adiga eegayaal daawadayaal fiiriyaal ma og tahay inuu yahay dareenku ku dhex nool jacaylku waa dareenkaasoo ah noocyo badan jacaylku waa siyaabo badan waan ka soo hadlay fiidiyooda hoos u dhigayso u raac sheekooyin badan xaasidkan ka soo hadalnay xaasidku ma dhamaan way socod doonaa ee anaa waxa aan jeclaystay marba inaan qayb ka hadlo waayo dadku way ka xiisa dhacayaan okay sheekada xaasidka hoostay ku jirtaa hoos u raac ciwaankeedana ku qoran tahay wax ka soo baro xaasidka iyo nafta iyo horumarka jacaylku waa guusha noloshaada daawade sheekada ayaan dhexgalaya waa Anjal channel official like subscribe kor waxageena la wadaag saaxiibada la wadaag walaalaha waxa laga yaabaa ajri xasanad ayaad ka helaysaa qof kale oo ka dhinad arrinkaas inuu sameeyo jacaylku ka helitaan marka hore wuxuu ku bilaabmaa ka helitaanku waa furaha jacaylka guri hadduu xiran yahay ama gaari ka xiran yahay ama qol ka xiran yahay ama xafiis ka xiran yahay aad furaha haysan soo inaad albaabka taagnatid maahan jacaylkuna waa ka furihii jacaylka waa ka helitaanka macnaha jacaylna way fara badan tahay erey kasta waa macnaynaya haddaan dhaho waqti badan buu qaadanayaa jacaylku waa feeling jacaylku waa dareen jacaylku waa nolol iyo raaxo waa farxad waa horumarka noloshaada waa iftiinka aakhiriya adduun ilaahay jeclow jannada aad heshide ilaahay wuxuu ku faray samee oo sax ah xanta ka fogow dambiga ka fogow beenta ka fogow khiyaamada ka fogow hadadaamada ka fogow dhiigga bini'aadanka ka fogow hilibka bini'aadankana ka fogow xalaashana cun xaaraantana ka dheerow xaasidnimo qalbigaaga ka saar qof kastoo walaalkaaya wuxuu horumari waxna
u ogolow waa guusha noloshaade daawadayaal arrinka jacaylka haddan falanqeynayna falanqeeyaha videoga Anjal Channel Official. Welcome mar labaad iyo mar dambaba walaalayaal jacaylku haddii aan hadda dhex galno sheekadiisa waa badduna wax kama aad qaban kartid laakiin hadba in yar baan soo goosanaynaa hadba in yar taxana musalsala ayaan ka dhiganaynaa rag iyo dumarba marka aan ka hadlayo jacaylku waa u simantihiin waana dhexdhexaad waxaan wuxuu sheegayana waa marwooyinka gentleman iyo dhalinyaradaba faa'iideysi wanaagsan iyo habeenku hanoo wacnaado aweysan wanaagsan Anjal Channel Official. jacaylku waa sidaan hadda soo sharaxay ayaa wuxuu fiidiyowga dhamayso gadaal qaybaha dambe waxaa ku jira waxyaalo badan oo wax ka bedeli doona ama adii doontid waa runteed iyo sheegay taloomaanigay iga hadlaysa maya kaama hadlaye aqligayga ayaa dareenkayga siinaya waana ogahay awlaad jacayl lagu dhalay idgoonka ayaad ku garata awlaad jacayl baan ahay jacaylkana waa aan ka dambeeyaa runtii noloshana waxaan aaminsanahay jacayl haddana lahayn inay ahaan lahayd mugdi inay ahaan lahayd foolxumo inay qurux iyo macaan dhadhan yeelateen okay intaasi bandhigiisa iyo faahfaahintiisa uu ahaa qodobada jacaylka iyo tallaabooyinkiisa kale ayaan u gudbaynaa ma ogtahay daawade jacaylku inuu yahay dareen ma ogtahay daawade adiga i daawanaya noowi eegaya ma ogtahay jacaylku inuu yahay farxad ma ogtahay jacaylku inuu yahay qaali ma ogtahay jacaylku inuu yahay hoggaan ma ogtahay jacaylku iftiin inuu yahay ma ogtahay jacaylku wanaag inuu yahay ma ogtahay jacaylku xumaan inuuba keeni karin ma ogtahay jacaylku udgoon inuu yahay uusan qarmuun noqon karin ma ogtahay jacaylku inuu yahay ya salaam ya salaam ya salaam soo dhawaada mar walbaba Anjal Channel Official waa walaashini dhiirigelin iyo wacyigelin faa'iideysi wanaagsan mahadsanidin daawashadiina jacaylku waa miftaaxuna waa fure carabi furaha waxa lagu dhahaa miftaax englishkana waxa lagu dhahaa key okay Soomaaliga waxa lagu dhahaa fure furuhu jacaylku waa furaha hadda marka suuq baad aadaysaa waxbaad ka soo helaysaa marad ka soo helaysaa waxaad jeclaatid ba ka soo helaysaa aad ayaa waxaas maskaxdaada u galeen haddii aad lacag sidan maalinta dambe maskaxdaada marnaba kama baxayo waad u noqon waad soo iibsanaysaa waxa aad jeclayd waxa kale dhig ka dhigayaa aan ku misalaynayaa aan ku rabaa inaad ku fahantiin jacaylku waa wax qurux badan magaaladaad u baxday gabar baa tahay wiilba aad uga soo heshay maada jeclaan laakiin adigu waad jeclaatay baa isleedahay now jacaylku waa last game waana nolosha dhamaadkeedii bilowgeeda saxda ah wiilba dhamaadkeedii dhexbartamaheeda weeyaan jacayl waxay diinteennuna watay sheegtay maasha allah ee tiri bacdi sawaaj ayuu jacaylku yimaadaa guurka markii la isguursado ayuu jacaylka yimaadaa waxa kale waa tis maqashii dowla arag tis iyo maqashiida waxa weeyaan furaha jacaylka oo ah kahelitaan ayaad wiil ku soo jeclaatay gabadha ayaan ka hadlaynaa gabadha waxa ay ka soo jeclaatay wiil way ka soo heshay aad bay wiilkaas uga soo heshay maxay hasdiin waad jeclaatay jacayl maaha waad telefoonadiina isna wuu ka helay telefoonadiina waa soo kala qaadateen waa wada hadasheen waa wada hasaabteen waa sheekaysateen weli jacayl miina gaarin aad ayuu jacaylkii ka helitaankiini aad ayuu u si tarmay gabadha wiilkii waxay rabtaa mar walba inay aragto inay maqasho aad ayay maxaa beermaya xiisahaas oo ah kabaya waa furihii gaariga ka helitaanka waa numberka koowaad ka helitaan numberka labaad waxa weeyaan oo batroolka gaariga ah furihii baad u haysataa batrool duleen miyuu dhaqaaqaya waa maya waa ka helitaanku waa furihii ereyga ah xiise wuxuu uu yahay batroolkii gaariga aad ugu tagi lahayd yarkii aad ka heshay
aan weli laakiin adigu is leedahay waxbaa ku wato wad jeceshahay never weli ma la jeclaan laakiin ka helitaan baa yimid furihii baad heshay haddana xiisihii baa yimid oo batroolkii gaariga ah batroolkii jacaylka ah iyo salaam biyihii jacaylka ah dabadeed wiilkii baad raadisay wiilkii baad wada kulanteen waa wada casheyseen waa wada joogteen waa soo baashasheen waa soo kaftanteen waa soo dalxiisteen meelo qurux badan baa tagteen jawi qurux badan baa tagteen qof xiisihii baa sii batay jacaylku xiisuhu ka dambeeya laba qof xiisaha iyo ka helitaanka ayuu jacaylkooda ku kala jabaa laba qofna way ka mari dhaliyaan jacayl bay gaaran jacayl wiilkii ayaa u soo bandhigay gabadhii aad ayaan kaaga helay qurux badanay waxaan doonayaa nolol runa inaan qaadano waa heerkii jacaylka oo furihii waa ka helitaan xiisuhiina waa number 2 jacaylku waa number 3 oo ramsi ah wiilkii gabadhii hayay tiri maanaaba sugi karaya inta aad isxalaalaysanayna dadaja hawsha baby honey waan dadajinayaa hayga degdegin baby okay honey waa la heshiiyay arrintoodii guurka family ama ayaga dhamaystay arrinkaas habeenkaas uu guurkoodu bilaamay meherkoodu dhacay markuu time-ku meherkoodu dhacay habeen iyo maalin ayaa jacaylku albaabka soo garaacay dhown jaliska markay aqal galeen ay wada degeen neeftoodii isku baxday neeftiisii iyo neefteedii isku baxay saxan oo lagu wada cunay nin iyo naagtii xalaala la noqday reer dhisan la dhistay jacaylku barkaas ayuu yimid wax ka baro taxanaha nolosha iyo furaha nolosha waxa bilaamaya haduu ilaahay ubad siiyo jacaylkii oo xoogaystay oo murqale ayaa bilaamaya kalsoonidii ayaa xoogaysatay ayaduna jacaylkay la socota oo la lamaan tahay because ma dhihi karno kalsooni baa hore jirtay waa ka helitaankay haddii aad ku isku galmootiin oo xaaraan isku galmootiin wuu xumaaday ka helitaankaas laakiin ka helitaanku wuu soo socday wuxuu tagay xiisu kugu wareejay number 1 waa ka helitaankii kor buu ku soo qaaday xiise ayaa kala wareegay xiisihii ayaa sii batay waa tan uu yimid guurkii jacaylkii ayuu xiisihiina kugu wareejiyay labo jacaylkoodu way adkeeyaan wayna beeroon wayna tixgeliyaan awlaad qurux badan ubad qurux badan hadduu ilaahay ubad siin وقدرت ilaahay ubadka siiyanta ubadka lahayd inta ubadkaasatana allaha u daayo oo bari iyo awlaad saciida ilaahay ha uga dhigo intaan haysana ilaahay awlaad saalaxa oo saciida bariya ha siiyo rabbi raxmaanaan u bariye amiin idaha inkuna walaalayaal ma ogtahay marka dadna ayagii aan beerin jacaylkii ayay ku kala tagayaan oo halkaas geedku ku qalalaya sida hadda geedkan la waraabinayo oo saas baa ay u baahan yahay jacaylka every day every time every hour every second inaad daryeeshid ka jartid caleemaha xumaaday ka goosid qashinka iyo kuwa gubtay green ku noqdo geedka ku baxo adiga ayaa lifekaas samaysan kara noloshu waa jacayl uduguna waa jacaylkoodu buleeyahay iftiin buleeyahay qurux buleeyahay ubax buleeyahay ubaxu waa awlaada marka aad soo kacday subaxdii xaaskaagii oo qurux badan gabadha aad qabtay oo qurux badan ilmahaagii oo qurux badan gurigaagii oo qurux badan ayadii ku dhawla cadaynaysa oh my god adduunyada maxaa ka dhiman aad raadinaysaa ma sheegi kartaa inaad cibaadaysatid oo aakhirada xageeda u leexatid oo sina iyo xaraan iyo khaa'inimo ka fogaatid iyo wuxuu ilaahay xaraantimeeyay aan ilaahay raali ka ahayn ma ogtahay daawade waa Angel Channel official waxa aad daawanaysid waxa ku soo gudbinayna waa walaasha Angel Channel official maxaad ugu diidin like maxaad ugu diidin subscribe-ka maxaad ugu diidin share-ka maxaad ugu diidin commentiga aniguba wanaag ayaan kugu tafaxaytay oo kugu soo fariistay
aan rabaa inaan kaa tuso haddii aad haysatid wiil iyo gabarba rag iyo dumarba allaha noo siyaadiyo haddaad haysatid oo wax kaa dhiman yihiinna kabaha u gasho hadeero qurxiyo waraabi jacaylka aad ayaa noo jeclahay guys jacaylku waa nolol waa iftiin waa raaxada macaankeeda raaxada keli lama ereyga raaxo ma ahan galmo ereyga raaxo wax kasta ku farxad geliyo waad ku raaxaysanaysayo qalbiga ayaa noqonaya calm down wuu degayaa wuxuu maskaxdu way degaysaa xubnaha jirkaagu wuu degayaa wadnahaaga barasharku waa ka degayaa farxad ayaa dareemaysaa bili aadanka kale oo la dilgaree kartaa waxaan la dilgaree kartaa qof farxad haysta guri qurxoon ka soo toosay abaayo qurux badan ee adiga haday daawanaya waa laftigaaga waa yuugaada isoo fiirinaya abaayo marka aad subaxi kacdid dhinacaaga uu jiifo yarkii aad jeclaydo rabbi xalaasha kaaga dhigay oo saa subax markaa soo kacdid ninkaagiyo qurux badan ilmahaagiyo qurux badan gurigaagiyo nadiif ah adigiyo waajibkaaga gutay quraacdii u diyaariyey faraxsan jambigaaga kula jiifo wehelkii ilaahay kugu dooray maxaaba iskaga khasaarin ee ku dhag oo adkayso dumarku waa udub dhexaadka naakaste oo caqli badan waxay dhashaa ilmo caqli badan hooyada caafimaadka qabta ee caqliga badan waxaa ka soo baxa gurigeeda waa beeri la hooyadii beerteeda waxaa ka soo baxa geedo aad u qurux badan oo wada green ah waxaa kaloo ka soo baxa ubax aad u udgoon iyo miro aad u macaan qof kaste oo akhlaaq wanaagsan qof kaste rag iyo dumarba qof kaste oo akhlaaq wanaagsan qof kaste oo edeb badan qof kaste oo wanaagsan qof kaste farxad badan qof kaste oo isluub wanaagsan qof kaste bulshada dhaqankeeda ku fiican oo markasta markaad aragtid maasha allah tabaaraka allah aad dhahaysid waa hooyo fiican ayuu baa dhashay qofka dhaqanka xun aflagaado afka xun cayda badan dadka la dhaqmi karin bilaa dabeecadda ah bilaa dhaqanka ah bilaa wada warka ah oo wada dheertiga ah hooyo dheertiya dhashay that is reality guri qurux badanna kamuu soo bixini guri madow buu ku soo baxay beer aan waraabi jirin ayuu ka dhashay miraheedii weeyaan dadkan dhalaysiin ma ogtahay inuu yahay jacaylku dareenka nolosha iyo dareemaha bili aadanka waa dareenkuna marnaba haddaad dareen lahayn de waxa aad tahay kabta lagu soconayo ma ogtahay daawade mase la socotaa ma ogtahay inaad tahay hooyada waliba dumarkan la hadlaya ma ogtahay ina aad tahay macalinkii nolosha ma ogtahay ina aad tahay quruxdii nolosha ma ogtahay inaad tahay quwadaada muuji iskuna kalsoonow ma ogtahay raggan dunida joogo adduunka maamulaya inay hooyo dhashay saasna usoo tarabiyeysay adiga ayaa ka dhigi karaya wiilkaaga wiilasha wiilka ugu sareeya adiga ayaa ka dhigi kara gabadhaada hooyo gabdhaha gabadha ugu sareysa mase ogtahay mise ma ogid haddaad ogtahay mahadsanid jisaagaadana jannada allaha ka dhigo ma ogtahay hooyo inaad tahay macalinkii nolosha ma ogtahay inaad tahay tarabiyeyaha adduunka se ma ogtahay wiilka fiican inuu dhalay aabba fiican aabba ma ogtahay wiilka actifeka aabba fiican buu leeyahay aabba se ma ogtahay inuu u yahay aabbuhu macalinka adduunka iyo hooyaduba ma ogtahay daawade inaad gurigaaga nadiifi kartid waraabi kartid beertaada ilmahaaga marka aad ku tarbiyeysid kalmada fiican marka aad ku tarbiyeysid diinta islaamka marka aad ku tarbiyeysid inaad ku tarbiyeysid tiraahdid ceeb waxaasna hooyo waa sax
ama aabbe waxaasi waa ceeb waxaasna waa sax ma ogtihiin hooyada iyo aabbuhu inuu yahay muraayada adduunka ma ogtihiinse hooyadu iyo aabbuhu inuu yahay macallinkii guriga ma ogtihiin inuu yahay aabbuhu hooyo ma ogtahay aabbuhu inuu yahay madaxweynaha guriga waa inaad siisaa respectigiisa waa inaad gabaray ninkaaga ma ogtahay madaxweynihii guriga inuu yahay ma ogtahay adiga inaad tahay wasal wasaari ku-xigeenkiisii ma ogtahay ilmahaaga curad wiil ama gabar gudoomiyihii baarlamaanka inuu yahay ma ogtahay dawlad dhisan inaad tihiin taas ogow haddii aad ogeydna waad ogeed waa ku mahadsan tahay haddii aad ogeydna hadda iga baro iga faa'iideyso waa Angel Channel official war like and subscribe and share hayga xaasidin amba kuma xaasidine nolosha furaheeda wixii ka dhiman ka qaado waxaadeen ka afcina mahadsanid like share iyo subscribe ka bisi jacaylku waa nolol nin kasta oo qurxoon oo waxa hadaad aragtid naag ayaa ka dambaysa naag aqli badan oo fariida ka dambaysa naaguhu waa kaaba iyo kala rida marka kala ridaha noqone kaaba noqo micnaha kaabo ee ma ahan dhinacaad u fasaratid hadalku waa margi dhinacii loo jiido ayuu aadayaa daawashadaada waad ku mahadsan tahay qurxay iyo qurxow ma ogtahay wiilashan dayaxa haybsaday adduunka maamulaya culumadii adduunka ah aqoonta dhameeyay haybsanaya dayaxa dushooda inay dagoon sanadaha soo socda ma ogtahay inay naag fiican ka dambayso ma ogtahay ninkaaga inaad adiga dhisi kartid ma ogtahay inaad ninkaaga ragga u liidi kartid ma ogtahay ninkaaga inaad adigu hoos ka dhigtay haddaad hoos ka dhigtay kor u qaad ninkaaga bedel dhaqanka gurigaaga waxa aad ku bedeli kartaa saraaxa ama runta Soomaaliba aan ku hadlee Carabiga marmar ayaan ku dhex turtaaye laakiin waan fasirayaa isla markaba la soco ma ogtahay adiga walaal biyaan cabaya iga raali ahaada waxa laga rabaa qofta dumarka ah in ay tarbiyeyso gabadheeda ku tarbiyeyso dhaqanka wanaagsan beentu waa ma fiicna ilmahaaga ha barin been ee jacayl bar ilmahaaga ha barin xaaraanta ka celi tis kalmada hadilin ha canaanan hana ku qayrin ee la saaxiib jacayl si ilmaha ninka jacayl si waad sii kartaa ma ogtahay haddii aad jacayl samaysid gurigaaga oo daacad iyo niyad sami ka tahay iyo naagnimadaada iyo ragnimadaada marka hore waxa aan kaala talinayaa naag baa la saaxiib naageed go telefoonkaagana cidiyay garan ee bedel only hooyada aabaha ama walaalaha hadba ka ayaga aad muhiimku ah in aad jeclaatid dibudhaca noloshaada ama reerkaaga kala tuuraya ama carruurtaada ka ximaanaysa waa xalfad tagista waa wararka waa wareega waa xasarada waa dambiga teebaa la furay teebaa la guursaday xagee ka shadantay caawo waa gurigee waa hodheelkee waa xalfadee waa baarkee waa kalaabkee waa xageedee maya kuma gaarisid reer qurux badanama beer qurux badanama beertaada saas ku gubatay qurux badnaanayso ilmahaaga runta bar runtu waa jacaylka koowayaan ilmahaaga daacadnimada bar ilmahaaga kalsoonida bar inay isku kalsoonaadaan ilmahaaga sida u shaqaysan lahaayeen bar ilmahaaga keer garee cunto fiican sii niyada u daji banaanka u saar soo wareeji naagaba time baad siisaa telefoonka 2 hour 1 hour dhigta ku haysa naaw ilmahaaga kaaga baahan xaram caleeg kaxee ilmaha odaga casho fiican u kari odaga la qaada time banaanka taga ka soo cunteeya soos dalxiisa seexda caafimaad gurigaaga ka shaqeyso quruxso naftaada ka shaqeyso ilmahaaga ninkaaga naftaada macaansi oo nafaqo leh waa jacaylka runta sirta jacaylku halkaas ku jirtaa gurigaaga naaga ha keenin gurigaaga nin ha keenin ninoo gurigaaga nin ha keenin ma rabtaa life is life saaxiib ha keenin ehel ha keenin cid kale ha keenin gurigaaga naagtaada iyo ilmahaaga iyo adiga ahaada
qofka martaqaadisid iyo qofka macsuumisid iyo qofka ehela maqaayadaha gee qarash ka yar baa ku bixaya guriga haddaad ka macsuumtid hal qof wuxuu ka noqonayaa dhamal laakiin maqaayada gee banaanka ka dir ka soo casheysi ka soo tag ama ka soo qadasi ama la family-ga wada socotiin ilmahaaga iyo xaaskaaga iyo dadka martaqaadisid soo wada cunteeyo ka soo noqda isku kalsoonaada daacadda iyo kalsoonida ayaa meel lagu gaaraa daacadda iyo kalsoonida xanta isku qarsada wanaaga isku qarsada horumarka ka tashada ninkaaga naag nin xun haddaad aragtid naag xun ayuu qabaa nin fiican haddaad aragtidna naag fiican buu qabaa gabar la guursaday oo edab leh oo akhlaaq leh ama gabar dhalinyaro ah soo kacday oo 18 age aan derbiyada taagnayn aan maqaayadaha taagnayn aan baararka taagnayn aan baadiyada taagnayn aan gabdho la socon hooyo fiican baa dhashay sharaf wiilow haddii ay gacantaadu soo gashana xus hooyadaasi waxa lagu gartaa hooyada fiican gabdhaheedu saaxiibo ma leh hooyadaasna saaxiibo ma leh ee wadanteeda taqaana gabdhaheeduna sideedoo kale hooyadu waa macalin gabar waa hooyadeed gabar haddaad aragtid gurigeedu urayo oo wasakh badan oo baaliya hooyo baaliya dhashay gabar karti leh oo nadaafad badan haddaad aragtid hooyo nadaafad leh oo karti leh baa dhashay marka aad guursanaysid xaaska walaal iska soo tijaabi familigeeda soo dhagadhagee siba hooyadeed iyo bulshada sida ay ku ahayd iyo sida ay u dhaqanto wiilka fiican oo wanaagsan hooyo iyo aabbo aad u wanaagsan baa dhalay siba aabbo maasha Allah baa dhalay wiilka xun dhaqanka xun oo qamarjiga oo dilaaga ah oo beenta badan oo cayda badan aabbo waxa dhalay isagoo kala ilmuhu waaridka ayuu ka tarjumaa cunuga fiican dad fiican baa dhalay cunuga xunna hooyo xun baa dhashay aabbo xun seebaa lagu nabadgeli karaa seebaa xeego lagu xigtaa ilkana ku nabadgalan waa Angel Channel official like subscribe xagaaga baqalnimada iska daa walaal like saar subscribe ka saar share ku qabo commentigana iga soo gudbi wixii aad haysid oo faa'iido ah igu soo dari kartid waa ku mahadsan tahay daawashadiina marka waxa weeyaan sida aad u dhashiin ubadkiinu u fiicnaado magaciinu u fiicnaado ka soo saar gurigaaga cunugana qabyaalad aqoon ka soo saar gurigaaga cunug wax bartay ka soo saar gurigaaga cunugan musuqmaasuq aqoon ka soo saar gurigaaga cunug iftiimaya weli gabar ku doonaha ahaade waxbarashada adaa ka dhisi kara ilmihiina marka aad subaxdii cunto aad siisin guriga bariis qalalan iyo hilib yar ama baasto qalalan iyo hilib yar ama wax yar oo isku malacjisan ama canjeelo ama hamburger cunugaasi waa gaajeysan yahay waana qalbi jaban yahay waxbarashadiisana way liidanaysaa cunuga ilmaha ha ku qaylin bari ilmaha subaxii marka aad kacdid cunug kasta waxa ku tarbiyaysaa hooyo Google sariirtaada first one sariirtaada Google gal masqusha soo cadayo soo qaweyso quraac fiican si sharaab liin fiican u mir wax fitamiina si iskuulkiisa diyaari iskuulkaaga aad lacag yar si muxuu cunug khayrkiisa oo fiirci lacagna si tuug ma noqonayo wiilkaaga mana gabadhaadana tuuga ma noqonayso cid kale iyo dadkan gaangiska kama faa'iideysanayoon waad kala dagaalantay doolarka ad ilmahaaga shilinka ilmahaaga ka qadisay ma og tahay halis walba ku galayaan daraag bay ku baranayaan gaangis bay ku noqonayaan way uu gaajeysan yahay wixii la siiyana uu qaadanaya waa qaybaha kala soco wuu soconaya waa qaybtii koowaad maxaad ka taqaan jacaylka iyo nolosha waa Angel Channel official like and subscribe and share mahadsanid daawashadaada walaal qaaliye ayaa tahay rag iyo dumarba gentlemen aan marweyn waad mahadsantihiin soo dhawaada mar walbaba kaliya laab caweyska iyo faa'iideysiga Angel Channel official ku xirnow ku taxnow saaxiibada la wadaag casharadana si kala uga hadli doona iyagoo oo 1 by 1 ah insha Allah la soco next video ayu ku dhaafin aad ayaad u mahadsan tahay
aakhiro iyo adduunna allaha ku barakeeyo isdaba qabta. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Angel Journal official like and subscribe كواحدنا jannada kuwa ku kulma Allah naga dhigo dambigeena iyo dambiga waalidkeen Allah u dhaafo intii dhimatay waalidiintii intii dhimatay intii noolba Allah u naxariisto aakhiriya adduun wadankeena nabad Allah nooga dhigo. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.